وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة. وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه. بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmahan wanaagsan aan soomayni ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga aqbalo, aamiin. intaas kadib waxaa noo socotay waxay tahay qisadii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam in labadii gabdhood uu caawiyey, islamarkaa mid ka mid ah gabdhihii ay u timaaday ay dhahday aabahaya ku wacaya si uu kaa abaalmariyo waxa wanaagsan aad noo samaysay. nabi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo gabadhii way israaceen. markay israaceen waxay u imaadeen waxay tahay aabbaha waxaa la sheegaa waxay tahay inuu yahay nabi shucayb. culimmada qaarba waxbay tilmaamaan, laakiin daliil sax ah looma hayo. haddaan ku wadno aabbaha kadib ilaahi subxana wataala wuxuu tilmaamay waxay tahay falamaa ja'ahu waqasa calayhi alqasas. ilaahi subxaana watacaala wuxuu sheegay waxay tahay marka uu imaaday, ujeeddada uu imaaday waxay ahayd in uu abaalmariyo, laakiin waxaa dhacay waxay tahay wax ka badan ayaa dhacay oo ah in uu waqasa calayhi alqasas, qisadii dhex martay asiga iyo fircown iyo dulmiga fircown uu ku hayay reer bani israa'iil iyo dhibaatada fircown uu galabsaday, ilmaha wiilasha ah dhan uu dili jiray iyo dadku ku shaqaysan jiray, dadkii uu wuxuu ku samayn jiray iyo wixii la mid ah oo dhan uu ku samayn jiray ayuu uga sheekeeyey. kadib ayaa aabbihii wanaagsanaa wuxuu dhahay waxay tahay laa takhaf, nabi muuse ha cabsanin, najawta min alqowmi aldaalimiin, waad ka badbaadaysaa qowmka dulmiga iyo xumaantada iyo dhibaatada wada. ma taqaanaa waxa aan ka baranayn qisada? intaa yar qisada waxaan ka baranaynaa wax nolosheen oo dhan noo wanaagsan. oo maxay tahay? haddii aad la kulantid qof dhibaataysan ama dhib haya ama murugaysan ama meel un laga haya, dhibaato uu kuu sheegto qaabka loo baahan yahay inaad ula dhaqantid oo ah waqasa calayhi alqasas. weligaaga haddii ama cunugaaga ugu yar uu ku yimaado oo dhibaato uu kuu sheegto ama dhib haysta ama qof weyn, saaxiibkaaga, saaxiibadaada wixii la mid ah oo dhan, waqasa calayhi alqasas, dhegayso. ha degdegin, ha xukminin, ha dhexgelin, laakiin waqasa calayhi alqasas, dhegayso. dhegaysiga waa xalka ugu wanaagsan qofka nafsadiisa ay ku degayso. dhegaysiga waa xalka ugu wanaagsan qofka kale dareemaya inuu helay qof kale dhegaysanaya. dhegaysigu waa badbaadada iyo maskax furnaanta iyo maskax fiyowga caafimaadka ku jirta waay. waqasa calayhi alqasas. weligaaga haddii ay jirto dhibaato qof uu kuu sheegto ama adii xitaa ku haysta, raadso qof ku dhegaysta. waa xalka ugu horeeyo lagu xaliyo. xitaa culummada psychologiga oo wixii la mid ay ku xaliyaan number 1 maxay tahay? inay ku dhageystaan. dad baa waxay dhaheen waxay tahay waxaan jecelahay waxay tahay qofna dhageystayna hal. waa sax, laana qof ku dhageysta waa qof ka fikraya caafimaadkaaga. lidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu barayaa waxay tahay in haddii dhibaato dhacdo iyo wixii la mid ah qof dhibaato haysta aragtid, ha xukminin, dhageyso. markaa dhageystid kadib laa takhaf, kadib adiga wixii aad rabtid ka hadal oo qofka aad dejinaysid. kadib wuxuu dhahay laa takhaf, cabsanin. sababtoo nabi muuse cabsi baa ka muuqdo. maalmo dhan buu magaalada soconaya, meel uu socdo ma yaqaan, yataqaqab. bal socod kaliya ma ahan, yataqaqab, asagoo is ilaalinaya. sababtoo ah magaalada dhan fircoon baa haysta, ciidamadiis baa haysteen. ciidamada dhan waxaa lagu amray waxay tahay inay muuse soo raadiyaan, ay soo qabtaan, meeshii ay ku arkaan inay ku dilaan waa la amray. ayadoo sidaa ay tahay cabsidaas iyo wix la mid ah dhan tilmaaman, wuxuu ku dhahay waxay tahay laa takhaf, cabsanin, najawta min alqowmi aldaalimiin, waa ka badbaadaysaa daalimiinta
يعني وحاب ليس وحيتها هذا الكي موسى عليه الصلاة والسلام وكدو عيسانة أوها مكو مغالك بحيي ربي نجيني من القوم الظالمين ربي يقبض بهذه قوم كظالمين جواب هذا يعني وحكى بغينا وحيتها نينك الصالحة وناكسن حكمتيسا إلى سبحانه وتعالى نوصل الشيء وحكى من قف كدباتيسن وحا جعل يحي مقاشي نجوت من القوم الظالمين وكبد بهذه قودتك الظالمين ونوموس وحا جعلان لها إنه مقلم محيتها إنه كبد بهذه صوبته وحوجه مقالة مدين مقالة أولونا معهن فرعون يعيدمدي السلام كان فرعون يعيدمدي محكم جيران سيدا تاريخ علماء أي شيئان لذلك وحيت إلهي سبحانه وتعالى قصص لا يونق بغيا كدب waxaa dhacay waxay tahay markii uu nabi Muuse qisada uga sheekay aabaa uu dhageystay aabahana uu dhahay caabsanin gabar kamid ah gabdhihii wiilka ninka wanaagsan dhalay waxay ku dhahdeen waxay tahay ya abati istaajiru aabow ninkan noo shaqaaleysi يعني شقالنا ودق يعني هنو سمايا وحي وناكسنا أيها مؤجو إنه نقون دون نبي إنه نقون دون مؤجو لكن دن توضا وناجا بدن أي كفجران يا أبا تستأجره أصيرنا دن إنه هلا مال هو إذا مال سيحضر مال كون تايو أيها وشقي وحلمت يعني ودن وناكس إسلامك أصيرنا بتبادأ يا أبا تستأجره نين لا سو دويستن نين فيعان وانين آد أمين بدن نين أو قوي بدن نين أوك بدن و آد فيعان وعقل بدن حكمت بدن أبو سو دويسو أباها ونكسن وحلو قرتا وحيت هاي قبل حكمت ديد أيو قاتي لذلك وحيت هدا أغت أبا كستو قادنا يقبله سحكمته هذا وأبا عقل بدن قبلها وحلو يقانا وحيت حليات أذك إني عقلك يوناجا إلهي سبحانه وتعالى قلبك وقليه سيدا يعني نو موسى عليه السلام قبل أيود بادسي هذا كان سلمى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ديسا وحلمت لجوجو أي أمر كيسا قادم وين يقول هذا يا رسول الله أذيك أن أبلاو كده أمر كاجو قادم يعني أيوة ورسم بإيهات صحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم ذلك وحنكولا وحيت هاي دمك عقلك وضع أن كف أيديسا إن شاء الله تعالى إلى الساس يونق بغيا حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل marka uu dhageystay talada gabadhiisa ayaa aabaha wuxuu u wacay waxay tahay nabi Muuse wuxuu ku yiri waxay tahay Muuse waxaan rabaa inaan ku guuriyo labadeeda gabdhood mid ka mid ah aadna ii shaqaysid 8 sano ina ii shaqaysid haddii 10 aad iga digtidna way ka sii fiican tahay waxaan ka baranaynaa waxay tahay halkaas ma taqaanan waxaan ka baranaynaa waxay tahay aabaha markuu arkay wanaaga nabi Muuse iyo markii loo tilmaamay nabi Muuse inuu yahay qof fiican oo leh laba dabeecad oo aad u qoox badan oo ah sida gabadha ay ku tilmaantayba qawiyun amiin nin qawi ah adag diintiisa ku adag jir ahaanna adag iyo amiin nin aamin ah oo mas'uuliyad ka bixi kara wax walba lagu kalsoonaan kara iyo wax la mid ah labada dabeecad markuu arkay ayaa isla markii fursadaas ayuu ugu faa'iideystay wuxuu yiri waxay tahay waxaan rabaa ka waran haddaan ku guuriyo labadeeda gabdhood mid ka mid ah qof wanaagsan hadaad aragtid waxyaabaha ka baranayna waxa ka mid ah waxay ku socotaa risaala hooyooyinkii aabooyinka dhamaan iyo qof walba naga mid ah hadaad aragtid qof wanaagsan qof fiican waa fursad qaasatan zamankan hadda aan ku nool lahay lama hela qof yani wanaagsan oo diin leh akhlaaq leh inta aadan waanin qofkaas ka faa'iideyso guurso ka faa'iideyso qofkaas yani حتى النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu leeyahay إذا أتاكم بالعكس sidoo kale haduu حتى adiga ku yimaado يعني كوالد ahaan haduu ku yimaado حتى من ترضون دينه وخلقه فزوجوه النبي صلى الله عليه وسلم uu leeyahay hadii idin yimaado qof leh diin iyo akhlaaq dabeecad wanaagsan leh nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay waxay u guuriya hadii kale waxa dhacaya waxay tahay fasaad iyo aad u badan ayaa dhacaya
marka waxyaabahan ka baranayn waxaa ka mid ah waxay tahay in haddaad aragtid wiil wanaagsan u guuri gabadhaada ama gabar fiican wanaagsan haddaad aragtidna u guuri wiilkaaga in sha allahu tacaala. حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء